Shirka afraad ee arrimaha horumarinta kalluumeysiga dalka ayaa maanta si rasmi ah kaga furmay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle, waxaana ka soo qayb galay Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan iyo Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada Hirshabelle Siraaj Sheekh Isaaq, waxaana sidoo kale qayb ka ahaa wasaaradaha arrimaha kalluumeysiga ee dowlad goboleedyada dalka. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada Hirshabelle Siraaj Sheekh Isaaq oo ka hadlay daahfurka shirkan ayaa waxa uu mahadcelin u jeediyay Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, taas oo ku howlan arrimaha horumarinta ee kalluumeysiga dalka. maalinba qofku markuu xanuunsado hal mar ma soo wada kabtee yar u soo kabtaa. waxaan isleeyahay waqtiyadii ugu fiicnaa siyaad barra kadib burburku markuu dhacay ayay maanta ay wasaaradda maraysaa. waxaan rajaynayaa Dr. Axmed oo nin aqoon-yahan ah iyo tiimka uu la shaqaynayaba in haddii ay isku xilqaamaan in wax badan muddada ay joogaan ay ka bedeli karaan. muxuu ahaaye marka waxaan rajaynayaa in wasaaradda kalluumeysiga ugu hambalyeynaya sida tiimka isku xiran ee wada shaqaynta leh ee ka howlgalaya wasaaradda ayaan ugu hambalyeynayaa. Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Aadan oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay ka go'an tahay arrimaha horumarinta ee kalluumeysiga dalkeena. halkan fadhiyo xilliga aan joogno 2 sano xukuumadda waxaan ku amaanayaa habeen iyo maalin u soo jeedaan inay hirgeliyaan wax u qoondeysan mashaariic iyo howlo ah oo aan filayno insha Allah mar dhow dadka Soomaaliyeed wax la taaban kara ka gaari doonaan. mar raba inaan ku dheeraado khudbadda. waxaan ka mahadcelinayaa soo dhaweynta, waxaan ka mahadcelinayaa runtii Hirshabelle oo astaahisho shirar kuwan ka badan in lagu qabto una qalanto madaxdeedana ay runtii si xoog leh oo mugul noo soo dhaweeyeen. waxaa kaloo bogaadinayaa tiimka ka soo shaqeeyay shirkan oo runtii ayaguna noo soo diyaariyay program xoog leh. shirka inaan furo ayuu qorshe yahay. shirku waa inoo furan yahay, waan isu soo laabanaynaa markaan break qaadano. aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.